habeen wanaagsan waa isniin 11ka bisha saddexaad sanadka 2019 waxaad ku soo dhawaataan warka habeen oo faahfaahsan. magaalada Kismaayo ee caasimada gobolka Jubbada Hoose oo maanta uu gaaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa wararka laga helayo waxa ay sheegayaan in shir gaar ah caawa uu uga socdo magaaladaas madaxda Jubbaland iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo maalmo ka hor wafdi hordhac u ahaa ay sii gaareen magaalada Kismaayo ayaa isaga oo ay weheliyaan wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa taliyaal ciidan waxa uu maanta ka degay magaalada Kismaayo iyada oo dadweyne aad u fara badan oo qaarkood u muuqday kuwa ay sii diyaariyeen maamulka Jubbaland ay taagnaayeen hareeraha waddo loogu talagalay gaadiidka ay la socdaan mas'uuliyiinta inay soo maraan. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo ka yara baxsan magaalada waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland iyo xubno kamid ah gurihiisa wasiirada waxaana shir kooban oo ay ku yeesheen garoonka diyaaradaha kadib ay la hadleen saxaafadda. Axmed Madoobe oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin imaatinka wafdiga ra'iisul wasaaraha ee magaalada Kismaayo isaga oo sheegay in maalmo uu sii joogi doono ra'iisul wasaaraha iyada oo ay yeelan doonaan shirar muhiim ah oo ay kaga wada hadli doonaan arrimo quseeya xukuumadda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo booqasho shaqo loogu yimid joogina doona dhowrka cisho soo socota waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare ku soo dhawow magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland. waxaan isleeyahay waa marti kuma tihid waa deegaankaagii waa timid waa dalkaagii waa dhulkaad ra'iisul wasaaraha u ahayd aad baan ugu faraxsanahay inaad timaado. haddaan kaftan ku darsado dowladda federaalka ah waa dowladda Soomaaliyeed oo isteedyada oo dhan iyo Soomaaliya kulli mas-uulka ka ah marka inuu socodkiinu yaraado oo shaqadiinu yaraato oo gacantiinu yaraato oo codkiinu ku yaraado isteedyada waxoogaa arrin iska jirta weye. taa marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaynan martina cid u ahayn deegaankiina ay tahay mas-uuliyaddiina saaran ay tahay dhulkaad xukuntaan ay tahay ku soo dhowaada waxaana rajaynayaa insha allahu inaan wixii wada hadale iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in tagitaankiisa magaalada Kismaayo ay tahay mid muhiim iyo macno weyn ugu fadhisa xukuumaddiisa waxaana ra'iisul wasaaraha uu sheegay wafdigiisa oo ay qayb ka yihiin saraakiil ciidan iyo golaha wasiirada ay is arki doonaan xubin kasta xubinta uga aadan maamulka Jubbaland sida taliyaha ciidanka oo la kulmi doona taliyaha ciidanka Jubbaland iyo wasiir kasta oo isna la kulmi doona wasiirka ku wasaaradda ah ee heer dowlad goboleed ee maamulka Jubbaland. ilaa maanta oo dhan inay noo taagnaayeen si noo soo dhaweeyaan maalmihii ugu dambeeyana ka shaqeynayay inay soo dhaweeyaan wafdiga aniga oo ra'iisul wasaare aan hogaaminayo ay qayb ka yihiin wasiiro badan oo ka mid ah golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo xildhibaano kale oo iyaguna ka socda golaha shacabka. waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen. waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo raynrayn. waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sida aan u dardar gelin lahayn wada shaqaynta ka dhaxaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka. sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhigooda ah. waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada oo iyaguna sidaas oo kale halkan u yimid. waxaan aad ugu faraxsanahay maalmahan idinla joogi doono. maamulka Jubbaland ayaa kamid ahaa maamuladii ugu adadkaa ee siyaasad ahaan dhowrkii biloodii ugu dambeeyay ka soo horjeeday dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo xukuumadda Soomaaliya hadda ay u muuqato mid ay u caaloweysay siyaasadda adadkeed ee ay ku wajahaysay dowlad goboleedyada si gaar ah maamulka Jubbaland waxaana xukuumadda Soomaaliya hadda ay bedeshay hanaankii ay ku wajahaysay maamulka Jubbaland taa oo ay qaadatay in qaab wada hadal isku soo dhawaansho ah maamulka ay ku wajahdo xilli maamulka ay ku soo fool leeyihiin doorasho bartamaha sanadkani. wararka ka soo kordha shirarka ka socda magaalada Kismaayo wararkeena dambe ama barnaamijka dhacdooyinka oo soo galaya 9 iyo qadar 30 daqiiqo ah ee caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa amray taliyayaasha ciidamada iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir in ay wax ka qabtaan amniga caasimadda ama ay xilalka isaga tagaan. Maxamed Abuukar ayaa faahfaahinaya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku canaantay amni darrada ka jirta caasimadda, gudoomiyaasha degmooyinka, taliyayaasha saldhigyada booliiska gobolka Banaadir, taliyaha qaybta gobolka, gudoomiyaha gobolka iyo afarta taliyaha ciidanka Soomaaliya kadib kulan xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya. kulankan oo qaatay muddo saacad iyo wax ka badan ayaa waxaa looga hadlayay ammaanka caasimadda iyo sababaha keenaya in ciidamada ammaanka ay ka hortagi waayeen qaraxyada iyo weliba dilaalka qorsheysan ee al-shabaab ay ka geystaan Muqdisho. xogtan helnaya waxay sheegaysaa in madaxweyne Farmaajo uu aad kulankan ugu canaantay taliyayaasha saldhigyada degmooyinka, gudoomiyaasha, mas'uuliyiinta kale amniga qaabilsan, isagoo u soo jeediyay inay iska casilaan shaqada ay u hayaan ummadda haddii aysan wax badan ka qaban karin ammaanka. madaxweynaha ayaa aad kaga xumaaday falalka amni darri ee ka dhacay caasimadda tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii al-shabaab oo toddobaadyo ka hor ay ka geysteen wadada istiraatiijiga ah ee Maka al-Mukarrama. madaxweynaha ayaa ku yiri saraakiisha ciidanka uma dul qaadan karno waxa socda, macquulna ma ahan haddii ay caqabado ay jiraan waa inaad soo gudbisaan, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya kadib kulankii uu la qaatay taliyayaasha iyo weliba gudoomiyaasha degmooyinka gobolka. kulankan uu la qaatay madaxweynaha taliyayaasha ciidanka ayaa ahaa mid ka duwan marka loo eego kulamadii hore, waxaana kulankani loogu falanqeynayay amni xumada ka jirta. madaxweynaha ayaana aad kaga xumaaday habdhaqanka ciidamada ee la xiriira habka ay u sugayaan amniga caasimadda. faahfaahin waxay ka soo baxaysaa shil gaari oo ay dad ku dhinteen kaas oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jakarta ayaa faahfaahinaya. wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan inuu ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac deegaan u dhow degmada Balcad oo lagu magacaabo Jeerada Caliyaale, kaas oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalada caasimadda ah Muqdisho iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gaariga rugmada oo ahaa nooca xamuulka qaada ayaa sida goobjoogayaal ay sheegeen waxa uu waday dhuxul, waxa uuna ka yimid deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo dhuxushaas loo soo waday caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. inta la xaqiijiyay ilaa 2 ruux ayaa shilkaas gaari ku geeriyooday, ummad ka mid ah uu yahay darawalkii gaariga waday, halka tiro kale ay ku dhaawacmeen. waxaana sawiro laga soo qaaday la arkayay mid ka mid ah qofka dhintay uu dusha ka saaran yahay gaariga rugmaday. dadku ag dhow goobta uu shilka ka dhacay ayaa gurmad u sameeyay dadkii ku dhaawacmay shilkaasi gaari, iyadoo dhaawaca loo soo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. sidoo kale wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa u muuqda inay tahay mid burbur xoogan uu ka muuqdo, waxaana dhawaan dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre si dayactir loogu sameeyay halkaas. wadada xiriirisa Muqdisho iyo weliba gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa inta badan waxaa ka dhaca shilal gaari, iyadoo taas sabab looga dhigayo burbur xoogan oo markaasi ka jira wadadaas. waxaana qaar ka mid ah darawallada gaadiidka ka dhex shaqeeya Muqdisho iyo degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee dhowr jeer cabasho ballaaran u soo gudbiyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Hirshabeelle. yeeshe ugu dambeyn dhawaan la filayo in dhismo wadadaas laga bilaabo sida gaadiidka dadkaasi halkaas ka shaqeeya si caadi ah u isticmaalaan, isla markaana ay u yaraadaan shilalka khasaaraha geysta ee halkaas ka dhaca. maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray amar degdeg ah oo lagula wareegayo dhulal danguud ah oo ku yaal magaalada Muqdisho. Faysal Cabdilaahi ayaa faahfaahinaya. duqa magaalada Muqdisho ayaa soo saaray amar dib loogula wareegayo xaruntii ciidamada badda Ex-Marine iyo gurigii taliyaha ciidamada badda oo ku yaala degmada Cabdicasiis ee gobolkan Banaadir. injineer Yariso oo suxufiyiinta kula hadlay maanta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in markii uu arkay baahida degdega ah ee loo qabo safaaradaha iyo diblomaasiyiinta loo asteeyo goobo ay ku howlgalaan uu soo saaray xeer dadka degan looga saarayo xaruntii ciidamada badda iyo gurigii taliyaha ciidanka badda Soomaaliya iyo dhammaan dhulka ka agdhow halkaasi oo si rasmi ah qorshaha uu yahay in loogu wareejiyo safaarado dalal shisheeye. waxaa cid allaale iyo ciddii ay qusayso lagu wargelinayaa in xaruntii ciidamada badda ama Ex-Marine loo yaqaanay ee degmada Cabdicasiis iyo gurigii taliyaha ciidamada baddaba iyo dhulka dhanka dambe ilaa iyo xeebta badda loo asteeyay goob ama deegaan diblomaasi ah. dhulkaas oo ahaa dhul dowladeed dan guud loogu talagalay markii horeba.
qorshahan ayaa ujeedadiisu tahay in caasimaddu ay la tartanto caasimadaha adduunka isla markaana loo helo diblomaasiyiinta iyo safaaradahaba goobo ay uga howlgalaan dalka iyo si loo soo celiyo bilicda caasimadda. sidaas daraaddeed waxaa xeerkan lagula wareegay ama dib loogala noqday dadka dukumentiyada u haysta dhulkaas maadaama dhulkaas uu markii horeba ahaa dhul danguud ah. inkastoo amarka maanta uu soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir aan la ogeyn sida uu ku dhaqangali doono maadaama awaamiir hore uu soo saaray aanay ka dhaqangalin magaalada Muqdisho waxaana ka mid ahaa awaamiirtii hore u fashilmay in laga guuro dhulka jardiimooyinka dawladda hoose ee Muqdisho. sidoo kale awaamiirta uu soo saaray duqa Muqdisho ee fashilmay waxaa ka mid ahaa in xoolaha nool ee lo'da ee magaalada dhex buuxa dawladdu ay xiro ku xareyn doonto haddii dadka leh aanay magaalada ka dhex aruursan taasoo noqotay amar fashilmay. lama oga hadda sida amarkan uu ku dhaqangali doono maadaama dhulka hadda la qorsheeyay in safaarado lagu wareejiyo qaarkood ay degan yihiin ciidan dawladeed. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u ambabaxay dalka Uganda halkaas oo uu uga qayb galay doono shir ay isugu imaanayaan madaxda dalalka Afrika. madaxweyne Farmaajo oo bishan oo kaliya safarkiisa saddexaad ugu baxay dalka ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka qayb galo shir ay ka soo qayb gali doonaan qaar ka mid ah madaxda dalal ka mid ah qaaradda Afrika. wararka waxa ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu la kulmi doono madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni iyo waliba madaxda kale ee ka qayb galaysa shirkaas. booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli dhowr jeer madaxweynaha Uganda uu hadallo qadaf ku ah Soomaaliya ku tilmaamay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed. sidoo kale waxa uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha Uganda inuu kala bixi doono ciidamadiisa dhammaantood dalka Soomaaliya haddii laga dalbado in uu dhimo tirada ciidamada Uganda ee ku howlgala magaca AMISOM joogana Soomaaliya. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya ayaa dhagax dhigay xarumo lagu qaado canshuuraha kuwaas oo ka howlgali doona degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay goobo kala duwan oo loogu talagalay in lagu qaado canshuuraha. wasiir Beele ayaa waxa uu sidoo kale dhagax dhigay xarunta macadka tababarka canshuur aruurinta dalka ee ku yaala Muqdisho. waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele in xarumahani uu dhagax dhigay isla maanta lagu bilaabayo dhismo. waxa uu intaa ku daray in xarumahani ay qayb ka tahay horumarinta dhaqaalaha dalka. waxa uu intaa ku daray in dhismaha xarumahani ay gacan ka siiyeyso bangiga horumarinta Afrika. wasiir Beele ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda maaliyadda lagu wareejiyay 200 oo askari kuwaas oo loogu talagalay inay soo aruuriyaan canshuurta. ilaahay baa mahadlay subxaanahu wa tacaala maanta inay noo suura gashay inaan dhisno. waxaan ku talagalaynaa xaruntan dabaaldegeeda inaan iskugu iman doono haddii ilaahay idhaahdo July 2 aad baan ugu faraxsanahay. halkaasaan furaynaa maanta. waxaa kaloo maanta bilaabmaya dhismahoodii dhismo kale oo isaguna aad iyo aad muhiim u ah oo ah dhismaha institute-ka cashuuraha iyo finance-ka lagu baran doono. waxa kaloo dhagax dhigan oo haddaan maanta ka gaarsiinaan dhigi doona shaqadoodina bilaabantay 5 goobood oo cashuuraha lagu ururin jiray oo degmooyinka ah ayaa bilaabmi doona. degmooyinka Muqdisho waa 17 kamid oo meel baan ku intii way burbureen. waxa si specific gaar aan ugu mahadnaqayaa African Development Bank oo lacagta asagu noogu deeqay ayaan ugu mahadnaqayaa. waxaan ku talagalaynaa marka inta hadhayna inaan ka shaqayn doono dadka Soomaaliyeed. waxaan weydiisanaa waxa weeyaan in arrintaas dadaalka nagala shaqeeyaan. codkaasi waxa uu dambeeyay warka wariyaheena Cali Xasan. guud ahaan waxaa intaas ku soo gabagabeynaya warkeenii habeenooda kaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. cidda warkeenana uu sheego